بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أولا waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan ummadda islaamka, gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta oo joogaan. waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. salaan kadib, caawa oo taariikhdu tahay 23 bisha 9 2020 ayaa waxaan jeclaysanay in uu Shariif Ibraahim Shariif Mukhtaar oo ka mid ahaa culimada Soomaaliyeed in uu wax yar nooga iftiimiyo arrimahan Soomaaliya la dhaxwado ee falka foosha xun ah, kaasoo qaybo ka mid ah dadka inna xukuumadda ee dawladeena madaxooda ka tirsan ay soo abaabuleen iyadoo runtii ay tahay arrin aad iyo aad looga xumaado. ayaa waxaan jeclaysanay inaan waraysi la yeelano waxa kaga aadan oo uu nooga jawaabo insha Allah taala. marka Shariifkan ku soo dhaweynayaa waxaana rajeynayaa oo kale qof kasta oo maqla arrintan inuu ka faa'iideysto ummadana uga sii faa'iideeyo. wabillahi tawfiiq. Shariif, su'aasha koowaad ku weydiinayna waxay tahay, maadaama aad aragtid inay xumaan badan ay ka soo socoto wadankeena Soomaaliya, bal marka ugu horeysa adigoo ku hadlaya afka culimada Soomaalida, maxaad ugu baaqaysaa ummadda islaamka oo arrinta aad ka leedahay ay dhaxwadaan hadda baraha bulshada? waxaan ugu baaqayaa culimada islaamka waxay joognaa aakhir zaman. nabigeena Muhammad wuu nala haddii dardaarankiisii aan qaadano, haddii wixii ilaahay agtii yaallo khayr ay ka qaataan noqonaynaa. haddii dardaarankii nabi Muhammad ee sanala dardaarmay aan geeska marnana, haddii inta cadaab oo ilaahay sheegay annaga unbaa iskale. markaas waxaan idin sheegayaa howl nabi Muhammad ummaddiisa uu kula dardaarmay. ummadda nabi Muhammad waxaa weeye 73 firqa weeye. 73 firqa, 72 waa ahlu naar. aad u dhegaysta. ninkii Soomaali wax soo baray baan ahay aniga iyo Sheekh Cabdinuur, Sheekh Xasan, Sheekh Aadan, Sheekh Maxmuud, Sheekh Maxamed Macallin. anigan idin la hadli raggii Soomaali wax soo baray baan ahay. hada dadkii aniga ka dambeeyay, anigana 100 hadda jira. waxaan idin sheegi, aad u dhageysta. wuxuu yiri nabi ilaahi Muhammad, ummadayda 73 firqay aakhir zaman qani, 72 waa ahlu naar, hal firqa naajiye. bal horta kaas maqla xadiiskaas oo saxiix oo Bukhari iyo Muslim iyo Nasaa'i, Tirmidhi, Abu Daawud, Jaamic al-Saghir, Jaamic al-Kabir, Targhib, Tarhib, انت بموافقة يكون يا قرآن. ويقول أمتي سيخرج في آخر الزمان أقوام وجوههم وجوه الآدميين، قلوبهم قلوب الشياطين، أمثالهم كأمثال ذئاب الضرار، ليس في قلوبهم شيء من رحمة الله تعالى، سافكون الدماء بغير حق، إن شايعتهم قربوك، وإن توانيت عنهم اغتابوك، وإن أمنتم على شيء خانوك، صبيانهم غارمون، شبانهم شاطرون، شيوخهم فاجرون، لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر، والاعتزاز بهم ذل، وطلب ما في أيديهم فقر، الحكم الواقع فيهم بدعة، والبدعة فيهم سنة، فإن الأمر كذلك، يسلط الله عليهم شرارهم ثم يدعو خيارهم الله سبحانه وتعالى، فحينئذ لا يستجاب لهم دعاء لكثرة الخبيث فيهم.
xadiidkaasayta oo bukhaari iyo muslime afkii aan ku fasiray haddee ilaahay baa nin caalim iga dhigay marka sidaad wax ku kasaan waan idiin fasiri dhegaysta sayaqruju waxaa soo baxaya aakhiru zamaan kolkii la gaaro ummadayday aqwaamun qoomyaalaa imaanaya wujuuhum wejiyaalkooda wujuuhul aadamiyiina dadka u weji eg quluubuhum laabtoodana quluubu shaydaani shaydaan qalbigiisana baa soo baxaya amhaaluhum masalka ay ku sugan yihiinna ka amhaali di'aabi duraan waraabaha daariga ahee xoolaha xudunta hoose ka gooya masalkiisa kuwa le waay laysa fii quluubihim qalbigooda ma ahaanin wax ilaahay jahadiisa u socda qalbigooda kuma jiro laysa fii quluubihim من رحمة ليس الله في قلوبهم مرض وحاول ليس في قلوبهم من رحمة الله شيء ليس في قلوبهم شيء من رحمة الله شيء حريص إلهي كان قلب وضعكم مسؤول سافكون الدماء ديق مسركة وإسكبشوا ويان ويحل شيء سافكون الدماء ديق مسركة ويحل شيء ويشو بيان سافكون الدماء سيخرج في آخر زمان أقوام وجوههم وجوه الآدميين قلوبهم قلوب الشياطين أمثالهم كأمثال ذئاب الضرار ليس في قلوبهم معها شيء من رحمة الله تعالى سافكون الدماء بغير حق إن شايعتهم هدي عطيه لما عاملتهم سيجارك يا مخايد إيو هدي على الإيد ما هي قاتك يا آتسيس قربوك ويكوسوا دوانيا وإن توانيت عنهم هدي على حمانته وإنت حقك وريكستنا اغتابوك ويكو حمنيا وإن أمنتم على شيء الدنيا ذا كمل أمنتوا شيء كان أمانة إيقابات هدنا خانوك ويكا صبيانهم غارمون إلما هي يجرب حيلين دما نوجرته وحنسية وين توكسنيان شبانهم تتكود الشاب كأن شاطرون الشيطان وي شيوخهم تقيدون فاجرون قالوي لا يأمرون فرما هيان بالمعروف شيء معروف ما فريان ولا ينهون عن المنكر شيء منكر أنا من هيان والاعتزاز بهم ذل كوا الله راعوا اللي دقيس حالكود وذل هيني نبو جري النبي لأن أمر كذلك أمر كمركو سلاس نقطة لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر والاعتزاز بهم ذل وضربوا ما في ايديهم فقم هذه قعدت اوضح كنت جرعات كذا ربط ايش كرسيان فقري بعد كان لازم يقول وفقري فإن الأمر كذلك أمر كمركو سلا نقطة يسلط الله إليه والدريا عليهم كركوضة شرارهم أضمها إليه كو أشر وما قال لكم الدريا نفتوضنا الدليان ما لما أركان كما في هذا الزمن هذا الزمن كان أنجوكنا حقال لماري ليك وها كتبها الدليان إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا فتنا نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا رقها أو النبي قال نحره وحيرين إن لله إلهي وحاب أسقنا هذه عبادا أتوما يا أسقنا هذا إلهي إليه أتوما سوى فطنا ذا فطن لما أصاحب عقل له يا إلهي ليه طلقوا الدنيا ذا طلاقين كما يطلق النساء ناقا سيدا الله فرو سد حدود الله سيه الدنيا ذا أفرين
oo wakhaafuu cabsadeen fitanan adduunyada fitnadeeda ka cabsadi nadaruu way fiirfiiriyeen fiihaa adduunyadii bay fiirfiiriyeen falamaa calimuuhaa hadday ogaadeen annahaa adduunyadii laysad inayan ahayn lixayin mid nool wadanan wadan uu ku nagaani inaasa ahayn hadday arkeen dallaquuhaa markaasay fureen adduunyadii sidii naagtii ay u fureenay u fureen jacaluuhaa way ka yeeshteen lujatan adduunyadii lujo waaye bad weeye watakhaduu way samaysteen saalixa alacmaali camaasha teeda suusuuban yay sufanan doonya aga dhigteen oo adduunyadii saasay kuwa mu'miniinta oo fiican ay ku gudbeen waxaan idin leeyahay 3 mas'alo qur-aanka ilaahay nagu fari asagoo fara badan 3 baaba nologu gaabiyey muxuu yidhahay ilaahay qur-aanka laa khayra fii kasiirin min najwaahum ilaa man amara bisadaqatin ow macruufin ow islaaxin bayna annaas waman yafcal dalika ibtigaa'a mardaati illaah fasawfa nu'tihi ajran cadiiman buu yidhi laada naafiye weeye laa khayra khayr kuma sugno fii kasiirin wax badan fiigiisa oo min najwaahum ummadda ay ku faqayso ku koodayso khayr kuma sugno buu yidhi bal aad u dhegaysa laa khayra laada naafiye weeye laa khayra khayr ma ahani fii kasiirin wax badan oo min najwaahum addoommaha ay ku faqayaan oo ku sheekaysanayaan ilaa najwaa man faqaysa ma ogiya amara faray bisadaqatin sadaqada baabkeeda dadka u sheegay oo sadaqada baray kuna camal falay qiyaamo kolkii lu isu imaado ahlu jannaha dadkan waxaa u horeynaya dadka sadaqada ilaahay aas qur-aanka ku sheegay bixiyo oo ummadda siiya kaasaa jannadu u horgelaya wadaadaan ahay sheekhaan ahay waxaas lama doonayo ilaa man ma ogiya amara faray bisadaqatin oo sadaqada maxay tahay ilaahay ma cunayo wuuna faray addoommahayda sadaqada dhibaataysan sadaqada siiyu yidhi ow macruufin xaqa u sheega ow islaaxin bayna annaasi islaaxa baynanaaska ee ummaddii lasoo gaaro nebi maxamed aan ka dhaxalnay islaaxa islaamka kolka ay dooni gabadhay dhaleen bay islaaxa ku bixin jireen xoolaha geela u qiimo badan ayay ku bixin jireen maxaa la hayaa hadda waxba lagama hayo ow macruufin xaqi ow islaaxin bayna annaasi waman yafcal ninkii fala daalika 3 calaama ibtigaa'a mardaati illaah ilaahay ridadiisa qalabkeeda u falo fa sawfa hadda dibaddeed nu'tiihi waxaanu siinaynaa ajran ajar cadiiman oo weyn baan siinaynaa jannada firdowsa la yidhaahdaa abaal looga dhigay waman yushaaqiqi rasuula rasuulka moxamed ee ninkii khilaafo oo amrudiinka iyo daacadii uu ummadda faray ninkii khilaafo min bacdi maa tabayana kolkuu xaqii u caddaaday bacdigeed daba maro wayattabic raaca kayra sabiili lmu'miniina muwaxidiinta jidkooda keyrkiisao duruqo shayaaniin ninka raaco nuwallihi maa tawallaa buu yidhi waxaanu nucdihi siinaynaa maa tawallaa wuxuu asaga tawallayba annagana yaanu siinaynaa wa nuslihi waxaa la gelinayaa jahannama naarta la yidhaahdaa la gelinaya wasaa'ad waxaa xumaatay masiiran marjacan meel loo noqdo waxaa u xumaaday jahannamo waxaan idin leeyahay soomaaliyey waxaad tahaysaan wax islaam haaya ma aha waxa qur-aankii haaya ma aha waxa axaadiistii haasi ma aha suraxadii ilaahay waxay haayaan oo ay ku dhaqdeen ma aha hadda weladuusini unbaa dalkii ka batay weladuusinihiina qool iyo ficil xaaraamtiisa asaga lagu dhalay unbuu asagana xukunkeeda haayaa oo isgelayaa waxay ila tahay xaajadanayta dib isugu noqdo isfiiriya soomaaliyey xaajadan aad u fiiriya waxaanan xugun ilaahay ahayn annaga kuma soconayna mana nala amrin dadkan xukunka ilaahay diiday ka soo horjeestay oo xukun shaydaan un asaga wato
oo muslimkii sidaa ku baabiyeynhaya jihaad ha lala galo raggaa jihaad nabiga jihaad galuu yidhi waa la galay jihaadkii diinta islaamka jihaad baa lagu soo saaray wuxuu yidhi rasuulka calayhi assalaam saqiirkii jihaadkii yaraayaan ka soo noqonnay ilal akbari kii weynaay baan u soo noqonnay maxaa loo jeedaa jihaadkii diinta lagu soo jihaaday oo ilaahay diintiisa lagu soo xarageliyey waa saqiir buu yidhi nabiga kii weynaay waa midka hadda annaga hadda aan joogno haddee waxay ila tahay soomaaliyey xaajadan inaad ka fiirsataan oo tashataan naag baa hadashay shalay naag maxay ku hadashay naagta naagtu waxaa la yidhi innahunna xabaa'ilu shaydaani naagaha shaydaanka xarkahu ku ugaarta weeye innahunna laa khayra fiihinna laa khayra fiihinna laa khayra fiihinna wala sabru canhunna khayr kuma sugno oo khayr kuma sugno oo khayr kuma sugno laga sabrana ma ahaanin bal hayee fiiriya bal hadda marka naaguhu wixii aayaadka faray kuma socdaan wixii raggii rag ahay oo soo gaarnoona dhali ay ahaan jireenna kuma socdaan maradii ay dhigatay bucdigeedii bay dadkii tusisay xaaraan bay ku hoggaamisay soomaali xaaraamta hadda yaa ku beeray iyadaa ku beertay wax laga dhegaysanayo oo xugun oo laga maqlaayo ma jirto maxaa yeelay naag nabi noqoto diinta ma ku aragtay mal idii kaga sheegay waa maya naag suldaan noqoto oo boqor noqoto miyaa la idiin sheegay maya waa innahunna xabaa'ilu shaydaani shaydaankaa ku ugaarta marka soomaaliyay waxaa tidhaahdeen naagtiida hadlaysaba dhawaaq saad rabto ku dhawaaq taajid ma aha shaqana ma aha soomaalinimo ma aha gabdhaha guryahooda ha lagu reebo guryahooda dhawaaqan beenta iyo xaaraamta ah oy ku cadaabgelayaanna ha laga reebo khayru lkalaami maa dalla maa qalla wadalla kalaam waxaa u khayr badan wixii yar wax xaq inuu ku tusiyo maasha allah intaasaan idinla dardaarmi wasalaamu calaykum maasha allah aada iyo aad baa sheekh u mahadsan tahay si fiican baadna u iftiimisay arrimihii loo baahnaa hal su-aaloo ugu dambaysaan rabaa inaan ku weydiiyo oo ah maadaama arrintan hadda sida la sheegaya ay ka dambayso qof dumar ah ma u aragsan tahay arrintan haweenka mas-uuliyaddan hadda ay ku tartamayaan inay macal xilka madaxweynayaasha ay helaan xilkan ay ku ordayaan ama la siin hayo inuu dhibaato u keensan karo ummadda islaamka waan u sheegi rasuulka maxamed calayhi assalaam aayadda ilaahay naagta kolkay socoto madaxeeda shaydaan baa ku fadhiisanaya ninkii fiirinaya kolkay sii jeesatana barida damba maxogga ah iskaga fadhiisanaya shaydaan baa u marka naag wax hoggaamiso shareecada islaamka laguma arkin waxbay dhashaa gurigay xaaqxaaqaysaa bacdigeeda hadday ilaahay ka cabsanayo naag fiican ay tahay itaalkeeda intaa keli weeye laakiin naag baa waxaa dhahday sidaas dhahday soomaali hadalkeedii ay bannaankii soo dhigtay baarlamaan baa la keenay waxaas wax xaaraam e weeye wax soconaana ma aha waa in laga tanasulaa wasalaamu calaa man itabaca alhudaa maasha allah aada iyo aad baan uga mahad celinaa shariif ibraahim shariif mukhtaar oo na siiyey fursad aan wax kaga weydiino arrimahan soomaaliya hadda dhex yaalla golaha shacabka baarlamaanka oo si fiicanna uga jawaabay insha allahu tacaala waxaana rajaynaynaa qof kasta oo muslima arrintaas inuu ka hor imaado waxaa kaga aadanna uu ka qabto liannahu rasuulku calayhi salaatu wasalaam sida uu noo sheegay ama ilaahay subxaanahu watacaala aayaadkiisaba uu ku sheegay inay siinadu ay ka mid tahay waxyaabaha ugu xun ee la sameeyo marka si aynan halaag iyo dhibaato weyn oo ummado hore oo inaga horreeyey noo soo gaarin waxaan jecelnahay qof kasta oo ilaahay ka cabsanaya inuu arrintaas u istaago oo kana hor imaado
nin mas-uulihiyo qof naftiisa mas-uulka ahaba